munaasabad ballaaran oo si heer sare loo sagaasimay ayaa maanta lagu qabtay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. munaasabadana lagu dooranayay caaqil cusub ay dooratay beesha Suubaan Cali Giri ayaa maanta lagu qabtay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn. waxaana munaasabadan caaqilka lagu dooranay ka soo qayb galay isimo cuqaal culumaadiin indeergarad iyo waliba bulshada qaybaheeda kala gedisan. waxaana maanta si rasmi ah magaalada Buuhoodle lagu doortay caaqil cusub oo lagu magacaabo caaqil Xasan Maxamuud Cali Xasan Digeed oo kamid ah golaha cuqaasha deegaanka Buuhoodle xarunta gobolka Cayn. waxaana maanta caaqilka si rasmi ah loogu doortay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn. waxaana ugu horeyntii munaasabada ayada quraana ku furay Sheekh Salebaan oo kamid ah culumaadiinka waaweyn ee magaalada Buuhoodle. في محكم تنزيله واستقل القائلين جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. الحقوق إنه كبلونه وحقوق مدن حفلت بينك إلهي وحاجة صدر دار منا ولا ليال عبسد إلهي وحا إلهي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إلهي كور رمية حق الرمية وإلهي كعبسد وقولوا دهيا قولا سديدا هذا الصوابنا دهيا يصلح لكم أعمالكم. إلهي عمل الذين أدونك وأيدين صوبنا ويغفر لكم ذنوبكم دنبيذنا آخر ودافيا. ومن يطع الله ورسوله قفك إلهي يرسل سعداعه فقد فاز فوزا عظيما. دبها وحل لبان أدوي. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ربنا الله سبحانه وتعالى وحن أمانة أبن دقني سماوات يا أرضنا يا الروح فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. وين الديدين هنا قاضا وانا كبقين وحملها الإنسان بني آدم كأيا قاضي إنه كان ظلوما جهولا. وهو هذا بني آدم يكون بالظلم بدن نفسه وظلم بدن وقف بدن وجهل نبى بدن يقول ترى بدن بو هذا إله الله سبحانه وتعالى. مركا حفلة ما دام قفل بدي حصل يرلي هاي وحنكش فايدتنا فرصة هذا كان شرح صده ما دام عاقل لو على مسار أيه عاقل كوربين سنة وعادي الله يوم قعدنا وسوا شيء دون بيف جارها صور استي يلو ninka caaqil ee la dhisaa de si guudna caaqil u wada yahay islaamka iyo bani'aadamka xataa qaar gaaro oo aynu darsnahayba dee waa nin weyn oo nabad iyo ka shaqeyn islaax beel gaarana de way soo magacowdaa dadkana nabad iyo wanaag buu ugu wada yahay xil u wada qaadaya. marka de ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala samaawaadka iyo arladanu ammaanada u bandhignay kadib iyo buuraha waa diideen. xilka caaqilnimada la qaadana waa ammaano culus oo la qaaday. saa daraadeed dee wixii waana caaqil ah waxaan kusoo daraynaa laba kelimadood waxa weeye soo dhaweyntiisa aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. caaqilka la magacaabay magaysa wala sheegi doona haddii alla idmo caaqil xasan maxamuud digeed. digtu waxa weeye waa hara digeed weeyaan waxay la tahay magaca wacan weeyaan digadii maaha la sheegi jiray waa dig waa harta dig la yidhaahdo ogaadeen hund. aayadaha qur-aanka kadib waxaa isaguna halkaasi ka hadlay faarax cali saliin oo isagu ka mid odayaasha waaweyn ee soo dooratay caaqilkan cusub ee maanta lagu caleema saaraya magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. waxaana faarax cali saliin ka warbixiyay ujeedada caaqilkan loo doortay waxaana hadalkiisa ka mid xabadan ugu yimid waa salaamayeen salaanka sheekha haddaan ka gudbo caaqilka aan dooranay ee reer Suubaan khusuusan reer bedela xasan maxamuud digeed oo maxamuud cali ku magacaabay laakiin digaag lagu daray ayaanu dooranay anagoo beesha reer bedela oo odayaal iyo dhalinyaraba asagaanu caaqil u dooranay aqoon-yahanimo haddii la qadar odaynimo haddii la qadarka leeyahay maxaanku idhaahay nabadgelyada aqoon-yahanimada intaasaanu ugu dooranay. markii waxaanu uga urjeynaa inuu kaalmo weyn dalka iyo diintaba ka qaato diinta lagu dhaqo lagu hogaamiyo. sidaa darteed ninkaasaan dooranay haddaanu beesha raacal bedelno. marka hore caleema saarkan lagu caleema saarayo xasan maxamuud cali oo ah beesha cali gari Suubaan beder waxaa ka soo qayb galay dad fara badan cuqaashii culimadii aqoon-yahankii isimadii dhalinyaradii
waxaanu leenahay caaqilkan cusub kii dadka anfaca noqo kii dadka anfaca noqo caaqilka cusub waxaa weeye beesha reer suubaan baa samaysatay caaqilkii hore wuu fadhiyaa waxaa xalay laga soo qaaday wanaagsan inuu wax ka calamo saaro caaqilkan xafladdan waxaa soo agaasimay dad aqoon wanaagsan oo aada iyo aada wax u garanaya oo ilaalinaya beesha furfurkeeda beesha suubaan buu ka mid yahay cuqaasheeda la doonayo inuu wax ka wanaajiyo ma aha beel cusub oo goosatay ama beel kale ka timid waa arrin si wanaagsan u dhacday annaguna waa ugu hambalyeynaynaa waanu soo dhaweynaynaa xafladdan nooca loo soo agaasimay ee garashada leh aada iyo aad baanu usoo dhaweynaynaa oo u hambalyeynaynaa odayaasha ka soo qayb galay xafladdan ee gobolka cayn way mahadsan yihin aada iyo aad bay mahadsan yihiin inay isku bartaan xafladdan caaqilka cusub dadka ka bartaan isagoo awalba dee caaqil ahaayoo shaqayn jiray oo odayaasha shaqeeyo ka mid ahaa ragga nabadda jecel ka mid ahaa haddana in laga sii tilmaansado oo la barto baa xafladdan loo agaasimay oo odayaasha horey u shaqaynaya ee magacawnaa uu kusoo biiro xasan waxaanu leenahay kusoo dhawow golaha cuqaasha iyadoo ay hawl badani kaa soo horeyso waxa laguu doortayna aynan ahayn dheef ee ay tahay dhibka dadka in layskaga kaa gudbo waxaan filayaa in danahaagii gaarka ahaa ee aada iska maamulan jirtay in lagaa kaxeeyey oo lagaa barakiciyey baan qabaa haddii kolley sida aanu maanta u ognahay aad u og tahayna maba aada yeesheen baan filayaa على أمير الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي أبا نقول فرح سنة هنا مقصر قيد الله حفلة نقول على مسار يعاقل حسن محمود دييد حسن محمود علي aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan sidaa uu sheegay caaqil cabdirisaaqna xasan waa nin la yaqaano waa nin odayaasha awalba ka mid ahaa waanu ku faraxsannahay inaa xasan caaqil u doorateen aad baan ugu faraxsannahay waana idinku hambalyeynayna intaa waxaan ku darayaa ninku xilka laba hal buu ku qaadaa inuu xoog ku maroorsado iyo in la doorto waxaa lay ninku hadduu xoog ku maroorsado dadka dabaduu ka maraayo horta kama maro oo deena waa nin xoog wax ku qabsaday xagga dambuu ka kaxeeya ninkuse haddii la doorto dadka doortay wuu hor maraayo isagaa la dabagala ninkaa haddaad dooratee waxaa ugu dartaan inaa adeecdaan intaa meesha geysan ha ka dhaqaaqina adeeca oo waxaan qabaa idinku filan oo taladiina ku filan kuwa ka tala qaato oo ka amar qaata noqda waajib bayna idinku noqonaysa mar haddaad doorateen waxaan intaa ku daraya sheikhu wuxuu yidhi sheekh Saleemaan shareecada ha la qaato sheikha waan la ayidayaa waxaan na ku darayaa soo kumaydaan heshiin inaa qaadataan inaa caaqil ka dhigataan xasan dee waa ku heshiin karaysaan inaa shareecada qaadataan wax culus maaha waxaan leeyahay noo horaan qaado oo maya shareecada waynu haysanay sheikh waxaadan u oran markaynu isqabsanno waxaynu idhaahnaa aynu xeerbeegtida isula tagno markaa shareeca maaha taas xoolaheynana nin reeraha ka mid oo nin weyne baan ku yidhi wargeela sekada ma ka bixisaa markaasuu yidhi waana ka bixiyaa kamana bixiyo markaasaani saasi maxay tahay markaasuu yidhi inta shareecadii igu xukatana ma bixiyo mana mariyo sheekh shareecada sheegaysaa waa taas se waxaad garatay maaha iminka markaynu salaada duhur u dareerno ama salaada casar u dareerno
intee qof aan tukanayn baynu halkaa kaga tagnaa waa ku jiraan kuwaas marka waxa weeye haddii aad ku heshiiseen inaad xasan doorataan waa ku heshiin kartaa inaad shareecadan qaadataan waxaana sharaf idiin noqonaysa in badan baa reer buhol layidhi shareecadan qaadano haddaa u horumartaan oo fulisaan waxa weeye dee sunno wanaagsan baa noolayseen oo shareecadii ilaahay baa noolayseen waxaan kaga baxayaa xasan ilaahay xilkaa maanta la saaray haw fududeey ilaahay ha ka yeelo xasan maxamuud cali waa soo dhawaynaynaa gacmo furan baanu ku soo dhawaynaynaa ninkii hawsha uga horreeyaba inuu la shaqeeyu leeyahy inkastoo sidii loo sheegay uusan ahayn xasan nin cusub oo maanta hawsha soo galay bal marka hore xasan nin hawsha ku cusubna maaha nin boobay oo xoog ku soo galayna maaha nin dhaxal reer soo shaqeeyuu ahaa oo la og yahay oo mansuura oo shaqo la kulmay uu shaqo ka qabsaday weeye waxaan leeyahay xasan wuxuu galay waxaan maqli jiray taariikhda waa intaa iyo shiigu wuxuu noqday arrin aan isdhi aad bay u hawl badan tahay waayo marka aan eegay dhinacii aada u raacdaba hawl baa ka siyaada caalimka sababta hawsha shaqadaada ilaahay shiigaaha ka badbaadiyey oo mid alla kuu sakhiro ha noqdo waxaa kaloo jirta cuqaasha waxaa la yidhaahdaa waxaa laynagu leeyahayna difaac waxaynu leenahayna doon waxaan maraya waad ka dacweyntay adigu taas sidii erayguu cabdisano cali xasan ku dhameeyey bay iigu muuqanaysaa inuu yahay soo dhaweyn wacan dadku dee cuqaasha way noo tirsanaan jirtay markii hore laakiin maanta halka ay marayso wixii waliba waa la bateen wixii waliba waa la bateen iyadana badnaantaas dee kolley anigaan garanayn ba yaraanta iyo badnaanta mid sotroonayd berigiisa ay yaray iskama soo urursanayd wax walba badashadii waa la bateenoo dee ma aha un cuqaasha wax waliba waa bateen noocii loo raacaba garaadadii baa batay cuqaashii baa badatay culimadii baa badatay wariyaashay barbixiyeen xasan maxamuud cali ayaa goobtan lagu caleema saarayaa ma aha caaqil cusub waa caaqil hore wey waayo horey buu shaqayn jiray hortiin rag baa shaqayn jiray oo booska waxaan malaynayaa de inuu dhaxlay in qodii hore ilowsanayn inay ogeyn ma aqaan saasaan kolley anugu haystaa haddaan dee wax iga khaldanayn marka labaad maanta hadduu isu soo taagay waxaan kaloo anugu waafaqsanahay guud ahaan aan malayna in cuqaasha kaga duwanahay ciddii xil qabiil markaa diyaar u ah in lagu soo dhaweeyo sababtu waxaa weeye dadkii oo tarmay dhibkoo iska badan gurmad weeye ciddii soo kordha waa gurmad soo kordhay wey saas darteed xasan isaga la dardaarmi maayo xasan waa annaga xaggayga waa tijaabsan yahay waxaa meesha loo keenay isbarasho in la barto cidda ula shaqayn doonaa inay barato laakiin maanta kolley xagga iyaga dardaaran badan waxaan malaynayaa lagama siinayo oo waa nin lasoo tijaabiyey waa nin daadiisu muddo dheer nin weyna aniga in badan iga weyn waa nin intaas soo shaqaynayey waa nin ciddii beesha ay kulmeen ama deegaanka uu ku nool yahay laga yaqaano taa dardaaranka intaasaan kaga gudbayaa ta labaad allahu fududiyaan leenahay xilka eerku waxay la tahay hadduu awr qura dhaansado mid labaad kusoo kordhay faa'ido weyn ba usoo kordhay annaga xagga iyagana waa sidaa wey marka waxaan leenahay nala caleema saara annagu waa soo diyaarinay idina nala caleema saara isagana waxaan ugu ducaynayna ilahay xilkaa u qaaday inuu fududeeyo asalamu calaykum waraxmatullah caaqilka cusub iyo munaasabadan ku saabsan ee sida fiican loo soo agaasimay caaqilka waa soo dhawaynaynaa xuqaashii hore unbaan wax la qabayaa oo ka mid yahay ninkii inaga qarsoonaay ee karti lahaay ee waxqabad lahaay ee inoo soo baxay waa fiican yahay oo waxaan u baahannahay waxaan leenahay hawlna waa kuu taallaa sida lagu tilmaamay oo nin xilqaadaya eed qaad allana ha kugu garab galo kuna soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu in lagu yidhaahdo caaqil baa loo doortay waxaad tidhaahdaa ilaahu wanaashiiyo khayrsay nibaad tiqiinna haddii la yidhaahdo waa hebel waxaad ku tiqiin yaa tilmaantu kaaga muuqata dee xasan waxaanu ku niqin inuu awalba caaqil ahaa awalba inuu caaqil ahaa awalba inuu nin dadku kusoo hirta ahaa
iminkana sidii baanu ka rajaynayna hadalka waxaan ku soo dhaweynayaa xasan awel ba adigoo dee ammaanta aan sheegaya waxaad uun caaqil u tahay maanta waxaad u noqotay reer buuhoodle ama dhulbahanta yaad caaqil u noqotay sidaa ugu diyaar garow adiga intaasaa ku qoli reer bederna waxaan idhi war dee dayaca kanaba meesha un ha taagin oo rag horaa yidhi kaga dhaqaaqi dayaca kanaba qoli reer guuleed baa berigii dhaweyd waxay yidhaahdeen war ma 100 halaad baanu siinaa mise 100,000 oo dollar waxaa idhi labaduba ku filan ha kaga noqonin labaduba ku filan ha kaga noqonin iminka waxaanu leenahay war waxaa la yidhi bahina way isxoola taqaan baydadana way isgantaal yaqaan war ha kaga tegina meeshan ha taagine ninkii madax buu noqday sidoo kale waxaa isaguna geestiisa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay caaqilka cusub ay beeshu dooratay xasan maxamuud cali xasan digeed oo isagu waa caaqilka cusub ilmawdiin uqaal dhalinyaro dadka sharafta leh ee xafladda ka soo qayb galay waa salaamayaan salaan labaad waxaan salaamayaa nimanka ila taliyey ee xafladda ka hadlay ee iwaaniyey iyagana salaan labaad baan salaamayaa waanadoodii iyo wacdigoodina waa qaadanayaa waxaa intaa ii raaca intaa waxaa ii raaca ee ka horeysa soon waxaanu dooranay 2 caaqil oo reer Suuban Caligeli ah labadaa caaqil mid cabdirasaaq jaamac biixi uu ahaa caaqilnimadiisu dhaxaltooy ahayd kursigii jaamac biixi baanu u dooranay ninka kalena wuxuu ahaa musharax cusub labadoodaba waa soo dhaweynay waa dooranay nin walba kufiinka caaqil waxaanu ugu dhufanay kufiin caaqilnimo ayaanu ugu dhufanay annagoo aaminsan ninkii mas-uul noqda ee soo kordhaaba inuu wax kordhinayo aniguna waxaanahay kii saddexaad anigu magaca caaqilnimo isuma sharixin caaqilnimaan doonayaa ma odhan wuxuu iigu yimi garasho la ii gartay iigu yimi aniga oo jeclaa rag iga dhallin yar ama iga hilbaroon oo raaskaa aniga doortay ee reer beder ka mid ah in lagu magacaabo aniga oo jecel misna markii la ii gartay sidaa darteed unbaan yaan ku qaatay waa diidi kara waaya qabiilka iyadoo ay igu wacan tahay arrimaha waxaa jira waxna waayo arag baad ka tahay oo aqoon baad u leedahay waxna waa waxaadan garanayn waxay yihiin anigoo garanaya hawshaa mas-uulnimo ama odaynimo culayska ay leedahay ayaan waxaan u jeclaa rag ama aniga igaba dhalinyar ama iga hilbaroono jooga in lagu magacaabo haddii ay dhacday waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay ii fududaato inaanan ku ceegoobin inayan noqon aniga magaca laygu sheegay mid dhib kordhiye mid dheef kordhiya inuu noqdo ilaahay baan ka rajaynayaa intaa waxaa ii raaca waxaa la yidhi dawladda waxaa la yidhi madaxweynaha u sarreeya waxaa ugu hooseeya askariga dablaha ah intaa u dhaxaysa ninba ninbu marti u yahay nin walba caqliga ilaahay geliyo iyo qiimaha ilaahay geliyo iyo cilmiga ilaahay siiyo nin walba ugu gaar
laakiin waxaa marti la isugu yahay niman marti ugu yahay siyoona la kala leeyahay yaa marti la isugu yahay xafladan oo iyadu ahayd mid si heer sare loo saagaasimay isla markaasna ay ka soo qayb galeen isimo culamaa u diin waxqarad iyo waliba bulshada qaybaheeda kala gadisan waxaana ugu dambeyntii halkaasi ayada quraan oo isugu jira wacdi iyo waano ka soo jeediyay garaad cabdilaahi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ودون إلا على الظالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حفلة خيارة بدن شرف كلا كسر طيب الشيء عليكم ورحمة الله وبركاته وحانو ملايين يا هذا الكنوح الكيسي ولا يدي هذا العسول أنفريا لما تشرو سين هيسا الصومالي يقولون بيوضع هيسا الإسلام كبديل سي هيسا waxay uu sababaan maray shariicada islaamka oo la garamay hadii shariicada lagu toosanaan lahaa dadku uu hagaagi lahaa hadii shariicada lagu toosan lahaa dhibaatada ma jirtay ama abaaraha laga sheegay la yiraahdo dadkiisa baahida watiida caad markay sheegayaan warka madaxa dhibaatada badan loo sheegay anu kulay niyadeeda waxaan isleeyahay uqbadi lagu sameeyay hay quraanka ilaahay wuxuu ku yiri wama asaakum min musiibati bima kasabat aydiikum ya'fu an kathir wa uqbadi lagu sameeyay haddii diinta laga tagana iyo cuqbadu waa iska dhacaysa anu waxaan leeyahay diinta lagu shaqeeyo axmed diiri hadda wuxuu yiri beelood qola aan isku tagin waxaan ku guddoonsanay inaan sharciga islaamka raacno dibisu meeshii aan ugu dambeysay buu anu waxaan ogahay axmed diiri sheegay inuu hadday mar reer boo hadlanahay goobo badan inay isugu nimid oo shaqada islaamka aan qaadanay oo saxiixaysan inuu qola la sameeyay oo aan halkii laga dhaafay anu taa waxaan aaminsanahay haddayna sharciga islaamka raacin oo ku toosan dhibaatada haddeerna dhibaato badan baa jirta waanu inoo sii kornaysa anugu sharciga hal la qaatanayo weliba haddeer dadka mas-uuliyiinta oo caaqiliintii culimadii saraakiisha ciidamada wax badan baa jooga anugu waxaan leeyahay hal la iskaashado oo hal la qabto oo odayada hawsha ha bilaabeen oo ciidanku ka cabdi uu sheegay ninka leeyahay cabdiraxmaan cabdillaahi waa jiro halka oo wixii shariicada iyo masaalixda dadka ku sugan hal la isu taago oo sidii hore si ka badan hal la isu taago haddii kale imika dhibaatada way noqotay haysta reer magbixintii waa 5 noqon ama 6 noqon ama ka badan baa lagu leeyahay wixina way iska sii soconayaan waxaana waa sharciga inuu ka siin haddii qofkan dhibaatada sameeyay ogyihiin naftiisa iyo maalkiisa xitaa bari hore waxaa lagu jiro ku jiro qodobadii hore in bari hore oran jiray ninka haddii oo nin diilaha loo dilo haddii la waayo loo bargooyo xitaa inahaasaan uu kaga baxay hadalkii ilaahina waxaan inooga bariyaa إلهي آخرين يدونك إنه إله آخرين يدونك يوناك إله مسائل تأدوية آخرة إله نجبت ذلك إله تأدوية آخرة من نجبت ذلك إله علادة يا أبارة كهر تيسنا إله علادة أبارة وكدلقاء إله علادة يا أبارة وكدلقاء إله الدولة أول أولدك الدين تي شرع الإسلام حكومة مش إله الوصية إله العلك مدى خير قبل نجسي إله العلك مدى خير قبل نجسي إله أمي إيمان بانكو ma aha markii ugu horeysay caaqil caynkan oo kale ay soo doorato beesha Suubaan Caligeli waxaana muddooyinkii ugu dambeysay si rasmi ah ugu soo badanayay deegaanka Buuhoodle xarunta gobolka Cayn caaqilo kala gadisan laga soo dooranayo tuulooyinka iyo degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn Najiib Cabdulle Cabdi Xiis telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Buuhoodle xarunta gobolka